shir jaraa'id uu maanta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika saxaafadda Soomaalida ugu qabtay afayeenka jabhadda ONLF mudane Cabduqaadir Xasan Cadaani ayaa wuxuu kaga hadlay shir dhawaan kaga furmay jabhadda ONLF iyo dawladda Ethiopia dalka Kenya kaasoo lagu heshiisiinayo labada dhinac oo dirirta u dhaxaysay. Afayeenka ayaa shirkiisa jaraa'id ku sharaxay waxyaabihii shirkaasi gogol dhiga u ahaa ee la filayo in ay isku afgartaan labada dhinac waa dawladda Ethiopia iyo jabhadda ONLF iyo waxyaabaha dhankooda ay jabhadda ONLF la tagtay shirkaasi. Bismillah, alxamdulillah, waxaan jecelahay shirkan saxafiga inaan warbixin kooban kaga dhiibno kulankii dhex maray jabhadda wadaniga xorriyinta Ogaadeniya iyo maamulka Ethiopia ee ku dhex maray magaalada Nairobi 9 bisha. kulankaas oo wixii qodobadii la soo hordhigay la isku afkartay wax kamida qaar kamidana la isku afgaran waayay. waxaa kulankaas lagu soo koobi karaa in qodobadii la soo hordhigay ay la isku afgartay qodobo kamida, qodobka labaad oo ah la isku afgaran waayay qodobo kamida, iyo midka saddexaad oo ah in kulan dambe dhace in lagu heshiiyay ayna soo diyaarin doonaan guddiga dhexdhexaadinta. sidaas oo ahaa dhanka kale arrin farsamo socota waan la wadaagi doonaa, laakiin ilaa iyo hadda waxaan ku gaabsanaynaa in qodobadii la soo hordhigay labada dhinac waxna ay isla qaateen waxna ay ku kala duwanaadeen, tashina ay qolo walba oo noqotay qaybaheedii kale, kulan kalena la qaabanayo guddiga farsamada uu hawsha uu ku dhex jiro. ilaa iyo hadda intaasan la wadaagi karaa saxaafadda. Soomaalida qorayaan waxaa jira digniino ay guddiga hadalku ay siiyeen labada dhinac oo ah inaanan wax khalkhal galin karaan wada hadalka labada dhinac midna ay keensadeen. maxaa kamid noqon kara waxyaabahaas? kolley waa wax wada hadalada adduunka oo dhan ay leeyihiin oo ah wixii wada hadalka. sidoo kale mar ay saxaafadda weydiisay mudane Cadaani jabhadda ONLF iyo dawladda federaalka Soomaaliya xiriirka siyaasadeed ee ka dhaxeeya ayuu sheegay in uu wanaagsan yahay, isagoona sidoo kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan ay yihiin kuwa taageersan jabhadda ONLF. shirka labada dhinac ee Ethiopia iyo Ogaadeniya u dhaxeeya waxaa dhexdhexaadiye ka guddi ka socda dalka Kenya oo uu hogaaminaya senatorka Yusuf Haji iyo rag saddex oo la socda oo safarro ay kamid yihiin iyo wasaaradda arrimaha dibadda rag ka socda. waa laga yaabaa dawladda Soomaalida iyo dawladaha deriskii inay dhagta u dhigayaan u koorgalayaan ama ka warhayaan, ha yeeshee cidda dhexdhexaadinta rasmiga ku jirtay waa dawladda Kenya iyo cidda iyadu ay kaashanayso ee kale. shirkani jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika afayeenka jabhadda ONLF mudane Cadaani ayaa wuxuu ku soo beegmayaa shir la sheegay inuu gogol xaar u yahay shirweyne la doonayo in lagu heshiisiyo dawladda Ethiopia iyo jabhadda ka dagaalanta dalkaasi ee waa jabhadda ONLF kaas uu dhawaan la filayo inuu ka furmo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Idris Sheikh Ahmed Guure, telefishinka caalamiga ee Kalson, magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika.